gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland mudane Sharmaarke Axmed Maxamed Sharmaarke Geele oo maanta warbaahinta qaranka kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa hambalyo u diray shaqaale weynaha dawladda xuska maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegan 1 bisha May sanadkan 2017 oo ku beegan maalinta Baritaa Mr. Sharmaarke Geele waxa uu fasaxa u diray shaqaale weynaha dawladda ee ku sugan caasimadda gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka isagoo xusay in shaqaalaha dawladda qaarkood ay ku shaqeeyaan duruufo iyo xaalado adag oo ay ku samraan waxaana hadaladii gudoomiyaha kamid ahaa maanta oo taariikhdu tahay 3 bisha Afraad 2017 hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay ka cilaaminaysaa in biritu oo taariikhdu boqolkiiba 1 bisha Shanaad 2017 ay noqon doonto maalin fasax oo shaqaalaha dawladdu ay ka nastaan maalin hawleedkii shaqo maalintaas oo ku beegan maalinta shaqaalaha adduunka hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo ka jawaabaysa qaybta ay shaqada maamusho oo ah shaqaalaha dawladda waxay u cilaaminaysaa gaar ahaan shaqaalaha dawladda in birita shaqada ay fasax ka noqon doonaan isla markaana waxay u rajaynayaa dhammaan shaqaalaha dawladda jooga Soomaaliland maalinta shaqada ugu hambalyeeya maalinta shaqaalaha adduunka waxaan u rajaynayaa shaqada qaranka ugu haysan adag xaaladaha adag iyo xilliyada adag ka shaqeynaysan in Ilaahay adduunyada iyo aakhirada ay ku siiyo abaalmarin iyo cisi iyo caafimaad iyo sharaf